السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مeel kasta adduunka joogtaan waan sii kii idin leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh. waxaan ku rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay sida anigoo caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay maalintaaduna ay fiican tahay. waayahay muuqaalka aan reaction ka bixin doona maanta Ismaaciil Xaaji oo aad wada ogtihiin oo in badan YouTube-ka laga waayay oo hadda soo laabtay. sida ogtihiin team Mataanaha Media iyo CK Family horay asxaabay u ahaayeen haddana asxaabaan nahay. haddana waxaan isla eegi doonaa janaalka cusub ee sameysteen anigoo horay ugu soo dhigay markay janaalka sida u sameysteen qaybta community-ga ayaan haddana wada eegi doonaa. shalayba markay YouTube-ka ku soo biirayeen waxaan ahayn dadka ugu horeeyay ay garab istaagay ee si la yaqaan u garab taagnaa. maantana waxaan diyaar u nahay YouTube-kan cusub hadda ay sameysteen inaynu garab istaagno. balan aragno Ismaaciil Xaaji message-ka ama fariinta uu noo wado mooyee inta kale waad arkaysaa oo waa la kulmaysaa. alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii dhacay sooma laabtaan. adduunka maanta haddii nolol ay jirto ama la nool yahay dabcan waa laisku soo laabanaa, waa laissoo hor fariisanaa, waxbaa lais weydiinaa. YouTube janaalkeena iyo anaka Mataanaha Media wuxuu ka mid ahaa YouTube-da Soomaaliyeed. maantana cilowdooyin way dhacaan, dhibaatooyin kale way dhacaan, wax waa dhumaan, wax waa la waayaa, wax way qaldamaan. sidaas ay tahay maanta qofka haddii uu nool yahay ama lixdiisa lixaad uu qabo ama uu shaqaysanayo ama uu nool yahay dabcan qofkii ugu jira oo ma ahan ma dhumin. dadkii way nool yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin, dadkii way joogaan, anakana waana kana way joognaa. marka dadyo badan ay jiraan oo siyaabo kala duwan u hadlaya, waxyaabo kala duwan sheegayay. maanta waxaa la joogaa maalintii toobaa la dhihi lahaa, maalintii ilaahay loo laaba lahaa. maalin waxaa jiri doonto oo qof aan xoog lahayn, maalin waxaa jiri doonto qof aan dhaqaaqi karin, maalin waxaa jiri doonto qof aan waxba qaban karin. anaa awood leh, anaa weyn, way dhammaanaysaa. intaan la gaarin ka hor waa inaan is xisaabinaa dhammaan haddii aan nahay YouTubero. ani maanta runtii anaga YouTube uma aanan joogin inaan lacag ka sameyno. dabcan inta aan maqnayn oo YouTube aan ka maqnayn waan nooleen. alxamdulilah rabbilcaalamiin nolosheena sida way u qurux badan tahay. nolosheena wax iskama bedelin, gurigeena wax iskama bedelin. inay wax noo sii qurux badnaadaan mooye wax dib inoogama dhacin. waa midda markaan idiin sheegan inaan YouTube lacagan u joogno. YouTube waxaan u joognaa in walaalaheena waqti aan la qaadano, aan la sheekaysano, aan waqti wada qaadano. YouTube ma ahan anag lacag ma aan soo galin. haddii aan lacag YouTube usoo gali lahayn waa qayli lahayn, waan dagaalami lahayn. YouTube-keeni ma leh, YouTube-keeni saanaa ku dhacday, YouTube-keeni muhiimadu midaa ma ahan. muhiimadu waa entertainment. YouTube wuu dhumi karaa laakiin dadku ma ahan wax dhumeeya. marka maanta haddii aad ku fikirayso adi daawanaya maanta haddii aad ku fikirayso xumaan walaalkaa ah inaad xumayso ama xumaan walaalkaa ah inaad qorsheynayso, ti ilaahay meel bay taalaa, ti ilaahay qorshihiisa meel buu yaalaa. marka aan isku dardaarno, marka aan isjeclaano, marka aan iska dhaafno dhibaatooyinka iyo warxuma tashiilka. waxaan maanta fiiri mid ku xisaabtan. maanta fiiri tusaale ahaan hadda haddaan kusoo qabto ninka ugu magac dheer ama ninka maanta ugu lacagta badan ama maanta ninka ugu ganacsiga weynaa waa ninkii lahaa kambaniga caanka ah ee wax aan ka iibsano ee Alibaba. maanta yaa meel ku sheego qofna, maanta qof meel ku sheego ama ma jiro. maanta haddii adigu aad iska dhigto inaad noqotid qof oo maanta wax waliba inta ka qabo inta ka yeela, maalin waxaa imaan doonto aan lagu arki doonin oo maalinka aad geeriyooto. inta ka sokayso aan naqano dad maanta wax isku fara, dad maanta wax isku sheega, dad maanta iswalaashada. fiiriya maanta adduunka YouTuberada waxaa weeye 4 milyan, 5 milyan, 10 milyan laga xisaabtama. anaga maanta YouTuber Soomaaliya oo 1 milyan gaar xitaa maanta ma hayno. sababto anaa idin sheeg sababtu waxay tahay waxa waaye waa isku waa anaga dhan qofba qofka kale oo fiirnaa, kan lugta ku dhag, kan inta ka qabo, kan sidaan yeel ma fiicna. dhammaantiin adaa idin jeclaa runtii. YouTube-kan YouTube cusub waaye. YouTube cusubna ma dhihi karo waayo dadkii way joogaan. only dadkeeni hore iyo anagu waan joognaa, laakiin janalkan ayaa wuxuu yahay mid cusub. idima farag doonto oo maanta idima dhahayno subscribe saara. waxay tahay wax shaqadiina ah
oo shalay meesha idin joognay ayaa maanta idin joogna wallahi oo billahi oo tallahi kalsoonida aan qabo hal habeen xitaa kuma fikirin dad baa weynaysa way waxaan ka dhashay Soomaali waxaan ka dhashay dad qalbi wanaagsan waxaan ka dhashay dad isjecel maanta dadka dhahay Soomaali dad xun waay Soomaali intee ka dhaceen Soomaali saan wallahi ma aaminsan qof xun ma jiro maanta fartaada xun filiq ka mahareys qofkaaga xun madaxa la sarta soo bilku wanaagsanaa maanta hadii aan dhahna fiiri dadka xun hadii aan dhahna waa ka tageena yaa inoo harayo qof inoo haraysa ma jiro dadku idil way naga kala cararayaan dadku idil way baxayaan laakiin maanta keena xun mid ka fiican hadaan ku wadno dhamaanteen waxaan naqanaynaa dad isjecel oo iswada wata oo ani waxaan idin leeyahay Ismaaciil kibaan ahay waan joogaa alxamdulillah rabbil caalamiin xitaa waa ciilay fahmt dadtiina wax walba hortiilo ay idin qaawaan idin xiisay badankiin aad baan idinkaga mahadcelinaya sida xiriirka la soo sameeyseen sida la soo hadlayseen qaasatan dhalinyarada reer Instagram aad iyo dad qalbi fiican oo mar walba la socda oo ilaaha Ismaaciil maxaa kugu dhacay ku aabay insha Allah ta'ala waxay uma dhicin waa kana waa noolahay hadlo ya insha Allah waxaan idin ka codsanayaa mar kale hadee sida shalay aan soo dhaweyseen si ka qurux badan oo ka wanaagsan oo ka qalbi fiican inaad noo soo dhaweyn doontaan insha Allah Ismaaciil Xaaji waa maqasheen dardaaranka waanada sida quruxda badan oo wax noogu sheegay inkastoo uu ka gaabiyay sababta keentay in janaalkiisa uu hawada ka baxo haddana run ahaantii waana qurux badan oo noo soo jeediyay haddii aan nahay youtubero iyo dhalinyarada social media-haba haddaba annaga muhiimadda hadda aan usoo fariisanay kursigan oo Ismaaciil Xaaji aan reaction-ka uga bixinayno ma sida dadka qaar inaan war raadino muhiimadoona waxay tahay maadaama isaga wajigiisa la waayay uu maanta isagii soo fariistay uuna soo fariistay waliba janaal kale uu isaga uu leeyahay in mataanaha meedii hore on annaga boqolkiiba 90 aan soo garab taagneen from day one baan xasuustaa shalay markay soo baxayeen waa garab taagneen haddii reaction ahaan lahayd wada shaqeyno haddii ahaan lahayd iswalaashano maantana Ismaaciil Xaaji waa kan wajigeenu hor joogaa waxa uu wataa magaciisi waxa uu wataa talentigiisi dadkii wali waa ay joogaan waxaan si sharaf leh uga codsanayaa CK family shalay Ismaaciil wuxuu ahaa walaalkeen oo saaxiibkeen u ahaa maantana waxa uu yahay saaxiibkeen iyo walaalkeen aan dareensiino Ismaaciil Xaaji in wali garabkiisa uu jiro aan ka muuqano janaalkiisa cusub wada shaqeyntii shalay naga dhaxin jirtayna maanta way naga dhaxin doontaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo oo sidii un baan isku nahay erayga waana la dhaho markii aad maqashid inta badan waxa kugu soo dhacaysa qof weyn aabo ama hooyo ama walaal weyn oo kale may waana sideeda waa la isku leeyahay qofka adiga wuxuu kaaga waay aragsan yahay hadduu ku sheegaba waa waano you don't know now waxa dhici karta mustaqbalka inaad janaal samaysatid in wada shaqeyn aad samaysid ama janaalkaagu inuu ahaado mid group ku shaqeeyo macnaha hadda aniga janaalkayga oo kale group kuma shaqeeyo inta badan janaalkayga aniga ayaa soo dhex fadhiya balse waxa dhici kara in aad group janaal ku samaysataan oo kale waxa dhici kara groupkaas janaalka ku samaysataan in qaab walaalnimo ah ku shaqeynayseen oo aad isku garab taagneedeen oo aad mid aheedeen waxa dhici kara marka in uu qalad yimaado haddii qaladkaas uu yimaado wax kasta oo dhaco weligaa la isku madayo wax kasta oo dhaco iyo si kasta ugu fikirtid in aad qof xumaysid macnaha waxaan ku iri wada shaqeyntii group ahaantiina ku wada shaqeynayseen ayaa waxa dhici kara inay wax xumaadaan bili aadana la yahay arab iyo labadiisa ilkooda isugu dhaw isqaliina weligaa waxaa la iska ilaaliyaa qofka waxaad ku weyn doontid beri walaaltinimadiisii adigana aad ku weyn doontid dadnimadaada dad ayaa waxaa soo marta inay daqarro ba'an isku geystaan laakiin weligaa waxaa laga fojignaadaa in adiga markaas xumaanta qofka bini'aadanka ama caradaadu intay la eg tahay arabti inaad dareensiisid in ay noqoto mid adiga ruuxaaga beri tiiraayo kugu reebi doonta waayo walaaltinimadu sideeda ma dhamaato waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa CK family shalayba markay YouTube ku soo biirayeen sidan oo kale ayaan usoo fariistay anigoo garabkooda ahaa maantana waan soo fariistay oo weli waxaan ahay garabkooda haddaba aan u muujino farxaddii iyo madadaaladii iyo qosolka shalay aan la qaybsan jirnay aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin I was so sad, me so good evening. I would definitely not
waxay ku day